أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سوادي. يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي. يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى توفيقك اليوم اعتمادي. يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ilaahay baa mahad leh. ilaahay baa mahadda nagu simay ee fursaddana siiyey intanoo culimo ay noo timaado oo noo duceeyaan. waa wax dhif iyo naadire dadku ay u helaan. marka aada iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa ciddii noo keentay khayrkaa iyo intaasoo culimo ah iyo ducadii iyo wixii wanaag ahay dadka farteen. aada iyo aad baan ugu faraxsannahay. ilaahay baan uga mahadnaqaynaa idin karsiiyey, idinkana waa idinka mahadnaqaynaa, intii ka hoshootayna waa uga mahadnaqaynaa. waananu jecel lahay mar walba iyo goob walba intanoo culimo ah oo ummadda o dhan ka imanaysa oo khayrkaa iyo wanaagga if iyo aakhiraba nafaraya inayna xusuusiyaan annaga iyo ummadda waa hiil, waa garabgal aanu aada iyo aada soo dhaweynino dadka ka shaqeeya diinta iyo wanaagga. soo dhaweyntaa kadib hadal badan malaha maanta halkan kama fura oo waxaa la idhahdaa dee ninkaa dheera wax lama tuuso, ninkaa aqoon badanna wax looma sheego. dee marka intanoo culimo anigu hadal aan kii aanu qanin dee halkan ma yaallo, marka waa iska gaagaabsanaya. marka hore aniga iyo culimada anigu waxaan umalaya inta halkan fadhida ma wada aqaano, badankooda waan ka weyna. inta horta aan garanaya sheekh xasan cabdisalaam baa ugu ciro weyno de aniga xaggayga waa ka inayar oo caruur. sheekh mustafon dee islahaw ani weyno waaba kan iska riixay. labadaba dee dhan ba iga macalimiid oo sheekh mustafana ummadda o dhan baa dhegeysta. ilaahay ka abaalmariya wax badan buu ka taray dhinaca diinta, nabadda, horumarka, aqoonta. waanan aftahamo ilahay wax siiyey oo maqaalka suulada dhegeysto waad ku nagaanaysa. marabuu mashkalada haysa aan ka dhegeysta isagoo xalinaya. jazaaka allah khayr sheekh.
xasanna dee waa raggii soo bilaabay diinta sideetmeedii soo iyagoo caruura dad badan soo tababaray anigayna aan wax badan ama buwaagu ii keeno i baray ama waano intaanana soo joogay anigay culimada horta anigu culimada waxaan ku garaadsaday iyadoo culimadu aada iyo aad loona karaameeyo ilaahayna karaamiye awood siiyo wixii ay dhahdaan baa laka aqbala markaaba markaa maalintii dhowito taarikhdu waa iska saxaysaa markii la yidhi janan baa la socday waadada ayaan ku ihi janan iyo culimo maxaa isu keenay anugu jananada sas baan ka qabayo jananadii culimadana laaya aayadana fasakay markaan janan maqlo kii yararka naga xidhay waadada ee aayadaha naga bedelay dee anigu sheekh culimada la socdo oo sheekh oo xaggii diinta jannabo ka qaatay dee jaaga waa ku ducaynaya waana kaaga dambaynaya anigu dee janan magaalo korneeliya baa la yidhahdaaye janankii islaamka noqo oo waa kugu dabagela raada inoo qaado baaraka allah fiik janan diinta inoo haya weliba saadaa adiga marka jananka soo socda walaa fiisa walaa hadal sheekh gaban kale waxaanu siinaya ciidan dee sheekha seeftii ku qaado waxaanu idinka maganahay laba duco iyo laba farimood oon iska codsanayna horta somalilan iyo soomaaliba nabad gu duceeyey dowlad ahaan maaha tuulo nabad gu duceeyey soomaali khilaafkaa ku batay oo meel walba gaadhay khilaafkaa aad iyo aad inooga ogfaaday soomaali inta ku hadashaba waa ka simantay meel waliba marka haddaa culimada tihiin ilaahayna aynu barino nagulana dadaala in dadka loogu duceeyo door weynna a ka qaataan si dadkii hore in dadka la baro nabadda oo khilaafka laga an markaa ayadaan idin sheegayo mig soo koray culimadu sanadkii mar bay soo bixi jirtay geela maraha laga bixin jiray iyagoo boqolo iman jireen waa la kala boobi jiray tawadaha la shido ayaa geela maraha iyo sekada iyo ducada waxay ahayd yani xajka oo kale markay culimada daan markay jiidaa marayaan hawdko dhan ma mari jiray de idinkana sidoo kale ad ka raba ama gawaari ka xajta ama lugeeyo ina sheekh cali sufaan halkan maraya hadii la yidhaahdo hubka waa la wada dhigi inaad tiraa dadka bal aakhira intaa gaaraysaan nabadda oo reerkaa isu leynaysaan iyo tuulada iyo ceelasheeda isku haysataan dee iska daaya de waa mashkiladu kasoo soo baxdee taa waad ka codsanayaa in nabaddaa duco iyo ficil ba ku darsan janan calan u qaado nabadda soomaalida tuulo walba dhexdeeda maaha dowladda waa inu dawada kasoo bilaabana waana caam meel walbay ka taagantay maanta laba somalilan waxaa uga ducaysaan laba waxyaalood duco waa laga aqbalay oo waa nabadda oo haddii runta laydin sheego nabadda tiirka koobaad waa culimada mustafe iyo xasan baa ila fadhiya iyo intooda kale annagoo jabhada gaar fadhina ayay nala daba taagnaa qalad baa ku jirtaa kada waa nimanka noogu dhiiran maanta haddii qalad dhaco wax laga tirsado oo madaxweyne ama dowladdu way qaldan tahay nimanka aan cidda weydiinin inta albaabka ga dhuftaan dhig wax hadayso waa iyaga saaxiibtinimona way gu dhici karaan aqoonna way gu dhici karaan go-aankooduna waan amisana inaan danaysanan iyagu ee waxay ka hadlayaan dad qaran ay tahy mararka qaarkood aan iskoo diidana ray markaa culimadu heerkasii joogaan iyagaa kow ka ah culimada lafteedu waxay u baahan tahay looga ducaynaya khilaafka waanu wareeranaa labadii culimo hadday kala jiitaan wa markay laba kitaabo kala jaad ay akhriyaan midna seefta qaado midna idhaa me adeer sulxa ku eg dee waa dhibaato marka culimada lafteeda in aada iyo aada loo badiyo xagga nabaddan anigu ogolay waayo nabadda iyo sulxaa dhaama in laysu qaado budka marka intaa la xoojiyo waxaa la lixii culimaa ee sulxaa wada ee mashkiladda caqli ku xalinayana arday baan ahay waan daba socda marka in aad taana ka qayb gashaan baa loo baahaya ta saddexaad faqriga soomaali cumuum ka dhigay ee soomaali ay la wada baahan tahay cidda ka saari karta ee mas-uuliyadda saaran tahay waa culimada waan ku celinaya daliilla waan haystaa culimada waa tiiri haddii sekada culimadu maamusho sekada somaliland maanta sheekhaa diintaan u dhiibin waa dastuuri waanu fulinay shaqo kuma lihin culimadaa loo dhiibin fudmaduna waad joogtaa qof waliba waa ka raalle anigoo madaxweynaha ka bilow in sekadii la ururiyo oo dadkeena dayacan lagu daryeelo waana taqule lagaa bixi kara dhibaatooyinka gacan bini aadmi oo kilise laga soo ururiyo waxba naanfici maaya soomaali anfici waaya soddon sano wadi
weli meel ay khayr ka keenaan lama arag horena in badan baanu idhahdaa markaa tana waxaan iska codsanayaa maanta isu dhantihiine magaalo walba sekadii way ku filan tahay iyo deegaan walba sekadii hala ururiyo oo sidii islaamku sheegaha loo qaybiyo oo annagu waanu ku wareejinay ciddii hawshaa lahayd wasaaradda oy culimada kale ag joogto degmo walba waan ku celinayaa somaliland waxaan is leeyahay gobol walba iyo distrik walba sekadeedu way ka saari kartaa 60% faqriga haya dee sheekh yaal xantana waa la isla yogay maanta lacagta xagga culimadu badantay shirkadihii maanta dee culimadu badayey markaa inoo maamulo oo faqriga intaan iska saar intaas waa intaan sida culimadu waxaad kala qabato oo aad iyo aad ha u soo gurto mar labaadka aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaa koran culimada ku baraarujinaya dadku waxa haysataan awood aan ciidina haysa aad baa laidin dhegeystaa dadku waxaad tidhaahdaan sidaa ay cawda u dhigteen masaajidka ma jirto cid ka loo dhegeysta culimada waxaad ka rabaa soomaali magaca ku hadlaa maanta dhibaatada joogta labadaa arrin baa haya faqriga iyo khilaafka waanada wax ka badan inaad qaadaan oo la arkaa idinku laba ka shaqeynaya anaa ad ku raaco 3,000 ee cajirood buu sheekh mustafa ee dhegeysanayso dee intii sheekh bashiir baa ka dhimanay bilaalaha waxna ku dar ducada waa soconaysee sheekh mustafa wala waar joog hebel qaldanto kulba meel ka qaadanay anarka dee ayaan dee usoo jeedinayaa intaasaa naga dhiman waxaan filayaa labaa inaan wax badan kaga baxayno madaxda si darka hogaamiya la dooranayo lagu daalaya waxay hayaan waa yarti waa ta koobaad adduun ay wax ku maamulaan ma hayaan waxaan kula bixi karaa inagoo labaa kutusano intaasi waa iga waarimadayda aad iyo aad baan mar labaad idinka mahadnaqayaa waa idin soo dhaweynayaa waa gurigiinii markaad doontaan shaksiyan halkaas waa sidaa ay ku timaadeen bay ka dhib tahay oo aynu wixii muslimka iyo soomaali lagu hordhawey laga wanaajiyo wanaaga waa idinla dhisaynaa warwarra ma leh culimada imaatinkeeda markay inoogu horreysay aad baanu iska xilsaaray sheekh cabdirashiid ammaanaan ku dhibo gurigii sheekha la geeyo waa kitaab qur'aan ah idinkuma qur'aanka bixiya waa kii uu baray quruxda adduunyada waxa ka qurux badan quruxda aakhiro iyo karaamada ilaahayna hugeeyey walaqad karamna bani aadama karaamada ugu weyn oo ilaahayna siiyey waxa weeyaan inuu ka dhigay dad muuminiin ah oo ilaahay qalbigooda geliyey diinta islaamka iyo yaqiinta taasuna waa intii laga hadlayey muddadii koobnayd 4 maalmood ahayd ee madaxweyne adigoo runtii aanu kaala tashanay ay codsadeen in maanta mu'tamaradii laga qaban jiray Yurub ay ku bilaabeen Somaliland geeyi Soomaaliya mu'tamar nasab u yeelanay guud ahaan reer Hargeysa iyo Jaararka hadday takilka shanaad ee dowladdeegaanka Soomaalida dad doora ka yimi oo dhageysanayay oo madax dhaqameedna leh ganacsato leh culimana leh waxa u yimaadeen runtii fursada qaaliga ah ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay in culimadu ay wacdido nasiib wanaag ah in intii lagu jiray mu'tamarka si nabadgelyo ugu socday wax buuqay wax si jira aan u dhicin hoolkii weynaa ee ku qaban jirnay shirarka kongareesyada xasaabta ayaa sidii wasiir Saciid Subxaale yiri wuxuu waa markii aan u horeysay kulan bila dambi aan hoolka ku galo marka farxad bay ahayd runtii hoolku buuxay rag dumar waa islaaka hadaan dumarku naga badnay dibadda la fadhiyay roobka xalad dibadda ku helay anagoo ducadii sugayna iyo khatinkii culimada sugayna dibadda roob ku helay bacihii iyo muxuu ahay gogashay loo dhigay bay ay ka gabood ka dhigteen xagga maartay muxuu ahay dabayshii iyo roobkii waxaas waxay kalgacayl loo hayo diinta madaxweyne hadalka badin maayo insha Allah كلمة عبد الرزاق وسلوفته هجامينية الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي الصوفي الشيخ علي امين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما هذا ربي كذب بعد شكر الله تبارك وتعالى وعنكو شكرنا يا مدن مدحوينه موسى بيحي عبدي مدن عبد الرحمن عبد الله زيلعي مدن عبد الرزاق خليف يرقو دن علماء دينك شيخ مصطفى إيو رقيسة
bahda saxaafadda, dhalinyarada. ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ina waafajiyey inaan somalilan dowladdayadii, xukuumaddayadii, dhulkeennii aanu nimi. sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo ah caalim qaari ah oo muqri ah oo mustawihiisu uu dhaafsan yahay soomaali ama qaarad adduunka oo dhan raqam wanada ah, raqam waaxidka ah, oo sheekh ibna sheekh ah. marka waxaa sharaf weyn inoo ah mudane madaxweyne muuse biixi cabdi inuu nagu soo dhoweeyey somalilan. waxaan bacda shukri illaahi tabaaraka wa tacaala shukri ballaaran u gudbinaynaa madaxweynaha, xukuumatan wa shacban. intaanu joognay waxaanu daraynay inaanu joogno dhulkayagii, dowladdayadii, dadkeennii, da-yar iyo da-weyn, dumar iyo duqey, dhammaantood qulubtay noo fureen. halkaanu tagna waddadaaba mari waaye anigu cashooyinkan oo dhan. war waa janankii ma aqaan meelaan isku baranayo, malaha intii yareed oo kaftanka ahayd oo aan xaajiga hawada u soo mariyey. waxay ugu dareed markaa soo galay madaxtooyada, corneel baaba salaanta taagay oo war waa janankii. marka dee taana meel ha ii taal. mudane madaxweyne, si ballaaran oo aanan kala har lahayn ayaanu u jeclaanay somalilan. dareenkayagu ama maxay ahaydayay qalbigayagu ama intaanu joognay maxay ahaydayay somalilan, waxaanan jacayl ahayn, waxaanan wanaag ahayn, waxaanan soo dhoweyn ahayn kalama aanan kulmin xukuumadda iyo shacabkaba. taana qalbigayaga saameyn xoogan bay ku reebtay. anigu hadalka badin maayo, culimmadii baa joogta, raggii waa ku dhan yahay, dal iyo dibad ka yimi, nin doorkii oo dhan baa jooga. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku shukrinaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo maxay ahaydayay shacabka. mar iyo laba iyo saddex iyo intaanu doonnaba waa soo noqnoqonaynaa. waxaana tahniyad ballaaran halkan ooga dirayaa shacabka somalilan meel kastay joogaan. waxaanu leenahay nabad iyo baraare iyo barwaaqo ku noolaada. ilaahay subxaanaه wa tacaala cizi iyo sharaf allah idin kordhiyo. annana waa idin ducaynay, waana idin maxay ahaydayay karaamadii aad inagu soo dhoweyseen oo culimmada halkay idinka joogto oo aan maxay ahayda idinka dareennayna dee taariikhdaa qoraysa. sida uu wasiirku yidhi, halkan waa meeshii ugu horreysay oo aanu ka doorannay carro soomaaliya, soomaali meelay degan tahay oo dhan. taasina runtii waa inaad maxay ahayd ay noo ogaataan. marka intan oo kale ani iyo culimmadeennaba in aan imaado, maxaa yeelay nabadda ballaaran oo taal, maxaa yeelay wanaagga yaal, maxaa yeelay culimo jacaylka iyo diinta taal. maalin dhoweyd baa waxaa ka dhacday hargeysa musaabaqo qur'aan oo aanan adduunka, sida uu sheekh cabdirashiid ba markhaati ka yahay, 10ka qiraa'oodoo qur'aanka ayaa waxaa lagu qabtaa kuwait iyo meelo dhowra, haddayan kuwait ba ku koobnayn, kuwait keliya weeye. waxaa ka qayb gala, waxaa loo diraa maxay casumaad adduunka oo dhan, carab iyo cajam iyo meel walba. waxaa ka soo qayb gala 14 keliya, markay ugu badneed 14 13 sheekh sidaa ma tahay. waa kuwait. casho dhaweed bishii hore halkan waxaa ka dhacday hargeysa somalilan, musaabaqada 10ka qiraa'ood lagu tartamayey. waxaa ku tartamay dhowr iyo 20 tartame, taariikhda ma ka dhicin intaan ognahay. waxaa taa raacda waxa tartamayey waxay ahaayeen wiilal iyo gabdhaba. waa mid kaloo aad iyo aad ii soo jiidatay
waa waxa inagu xambaaray in aan ku nuuxnuuxsanno oo go-aan adag ka gaarno halkan inaan mu'tamarkaa ku qabanno. marka shacabka iyo xukuumadda iyo maxay ahaydayay madaxdaba iyo mudane muuse bixi cabdi waxaan ugu tahniyeynayaa sida ay u garab taagan yihiin diinta iyo maxay ahayd. habeen dhaweed muusan dhegaysanayey madaxweynehayga baan dhegaysanayay oo leh diinta islaamka ilaalinteedu dushay iga saaran tahay oo wixii yaroo ka dhaca oo maxay anigu ilaahay aakhira qabsanaya. aad iyo aad baan ugu farxay hadal diiran oo qiimihiisa leh. marka mudane madaxweyne halkaagaa ka wad diin u gargaarka, diin ilaalinta, maxay ahayd culimo soo dhoweynta, culimo karaamaynta. dee annana waa idiin ducaynaynaa. hadalkayga intaasaan isaga soo koob. وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ra'iisul baarlamaanka dhammaan waa idin salaamaya. jazaakum allahu alfa khayr. hadalka badin maayo, waxaan ku soo aruurinayaa uun alxamdulilah rabbi alcaalamiin. bil ka hor markii noo yimaadeen akhuuna cabdirasaaq iyo wafdigu hogaaminayey oo ay naga dalbadeen inay shirka islaamiga iyo muctamarka inay ku qabsadaan somaliland, hargeysana ay ku qabsadaan oo culamadii dibad iyo gudaba ay iskugu tagaan. si sharaf liyo ayaanu ku qaabilnay. waayahay baan ku nidhi gogoshu waa gogoshiinii, wadanku waa wadankiinii, dadku waa dadkiinii, soo dhowaada. alxamdulilah mubaasharatan waxaanu ka soo galnay oonu la xiriirnay wasaaraddii diinta iyo awqaafka, wasiirna sheekh khaliil, oonu awal ka helnay muxuu ahaa muwaafaqadii koowaad. marka si sharaf iyo qiimo leh ayaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin u dhacay. annaguna annaga dowrkana saaranna wuxuu ahaa haddiiba kuu rooyahay culamada soo dhoweyntoodii iyo in laga shaqeeyo sidii ay u nasan lahaayeen. dowladduna nooma kala hadhin, ama wasaaradda diinta awqaafta ha noqoto ama wasaaradda arrimaha gudaha ha noqoto, wasiir maxamed kaahin iyo tiimkiisa. marka halkaa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum. adduunka waa lagu faanaa, adduunyeynuhu magaalooyinku way ku faanaan inay qabsadaan dhacdooyin caalami ah. dalxiiskay kordhisaa, magaalada magaceeday qaadaa. waa waxa la yidhahdo soft powerka waxa la yidhaha wey. oo maxay tole intaasoo milyan oo qof baa ka daawaday online, ka daawaday dhacdooyinka maxay tole ka daawaday. market kumaad bixin, lacag kumaad bixin. adduunkana in la ismarket gareeyaa waa lacag badan bay bixisaa. marka waxyaabaha waa tala magaalo heblaayo waa ta la yidhaahdo waxaa lagu qabanayaa tartanka gaadhiyada ayaa lagu qabanaya, tartanka maxay ayaa lagu qabanaya. wasaaradaha dalxiiska iyo wasaaradahaba lacag ku bixiya oo u tartamo yidhahdo annaga noo keena. oo waad ogtiin iminka in la yidhaahdo meel heblaayo waxaa lagu qabanaya olombikii baa lagu qabanaya, ama meel heblaayo koobkii adduunkaa lagu qabanaya. tartanka adduunka ka dhaca waynagoo og. maxaa la raadinaya? waxaa la raadinaya magaca in la raadiyo. marka alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, hargeysa caasimadda somaliland bifadli illaahi wa karami taxta ri'aasat muuse biixi iyo dowladdiisa inay noqoto meel lagu soo hanto oo qur-aankiina lagu tartamo, wacdigii iyo waanadiina lagu tartamo. waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran, abaal baanu haynaa. jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum. sida ay dowladdu noo soo dhoweysay xaqiiqatan abaalkaa maxator waan haya. waxaan kaga baxayaa culamadii dibadda iyo gudahaba ka soo qayb galay jazaakum allahu khayran. sacaadat alra'iis intii dibadda kala socotay online-ka marka laga reebo kumaakum ayaa isugu yimid maxaytoley oo life maxaytole u yimid. muxaadarada bilaabmasa 4 iyo barka la furayo, dadku kowda duhurnimo ayay sii fadhiisan jireen, dumar yar. markaas intay qaacadu buuxsanto ayaa hodheelkii weynaada ogeedee mansuur ayaanu bac intaanu gogolnay ayaa ilaa goro meeshii lagu ciyaari jiray kubadda garoonkii ku yaallay hodheel mansuur ayaa lasii goglayay. geedadkii oo dhan bay dumarku ay gogladeen oo kuraasi iyo gogol maxaytole la dhigay. maxay markhaati u tahay arrinkaasi? arrinkaasi markhaati wuxuu u yahay shacabkaagu sacaadat alra'iis inay u ooman yihiin, oy u baahan yihiin, oy soo dhoweynayaan kitaab allahi wa sunnata rasuuli sala allahu calayhi wasalam. in loo sheego oo loogu celceliyo oo la fahansiiyo khatarta xagjirnimada, khatarta ay leedahay fahamka qalloocan ee diinta laga qaataana waxa keliya ee sacaadat alra'iis awdi kara ee yarayn karaa waa cilmiga saxiixa ee sharcigaoo la faafiyo. iyo dad culammadu adduunku ay ku kalsoon yihiin oo culammadii dadkan diintooda u hayey ee culammadu kalsoonida u haysay iyo dadkiioo la istuso oo u yimaadaan. halkaas waa halka koowaadee aynu ku yarayn karno wax allaale wixii khatar ku ah
diin qalloocan oo ina soo gasha marka inaynu sidaa aad u soo dhoweyseen sidaa u gacan qabataan inaynu tan iyo kuwa ka duwanba in aynu maxay toole samayno jazaakum allahu khayra wbaaraka allahu fiikum wsala allahu calaa sayidina muxamed wcalى aalihi wsaxbihi wslem asalaamu calaykum wraxmat اllah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي waxaan ka baryaa marka ugu horeysa inuu kulanka iyo jamaca inoo barakeeyo kulan uu aqbalay oo alle agtii maqbuula alla inuu inooga dhigo maxaa yeelay kulamada dadku isugu yimaadaan 3 kulan iyo 3 gola ugu wanaagsan golayaasha in khayr la isu farayo iyo in sadaqa la isku boorinayo iyo in cid lagu heshiisiinayo marka waa kulan ka mid ah 3da ilaahay kulamada uu ogol yahay intaasi waa iga muqadimo madaxweyne muuse waa uga mahad celinaynaa kulanka iyo xukuumaddiisa madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka madaxda kale fadhida wasiir alawqaaf dhammaan kulankan gabagabadii nadwada kadib culimada qasriga madaxtooyada saakay madaxweyne ugu qaabilay jazaaka allah khayr markaan mahad celinayna waxaan ilaahay ka baryaa mid midha dhala oo inta cumrigeena iyo kadibba loo aayo inuu noqdo kulankan midhaha ka soo baxa runtii khayr badan baa meeshan ka dhacay wakhti badan baa la geliyey hanti badan baa gashay wuxuuna la qabanaya insaanku qabanayo wuxuu wax ku ool ku yahay marka ay niyadu daacad taho dar ilaahay tahay wixii kale laakiin waa habaan manfuura daal iyo tacab baa laga qaada marka ilaahay waxaan ka baryaynaa dadaalkii badnaa ee la bixiyey xukuumad iyo shacab iyo culimo inuu ilaahay inoo ka dhigo mid niyad wanaagsan ahaa oo ikhlaas ahaa oo rabbigay aqbalay taasaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala intaa bacdigeed madaxweyne markii xukunka iyo intaan la gaadhin madaxweyne maadan ahayn oo shaksi baad ahayd kadibna madaxweyneaad noqotay kadibna adduunka waa ka tegeysaa adoo aan madaxweyne ahayn madaxda kalena waa la mid xukunka iyo kursiga ummadda u sarreeya aad fadhido mas-uuliyaddiisana waa wataa imtixaankiisa ilaahay kugu asturo adiga iyo madaxdaada xilka aad haysaan allah idinku asturo waa naas la nuugayo caano badan marka afka lagu hayo marka ay gudhana wax ka khatarsan ma jirto xilkuna waa adag yahay arrinkiisu iyo mas-uuliyaddiisu ilaahay xilkaa aada haysaan wasiire iyo madaxweyne ku-xigeenna iyo madaxweyne allah idinku asturo oo idinku ducaynayna mid alla agtii janno ku heshaan oo alla ku asturantaan agtiisa oo khayr ka heshaan ba allah idinka dhigo wakti kulul wakti adag aakhir zaman ah dadkiisu adag yahay imtixaankiisu badan yahay baa noloshu iyo xilku ku soo beegmay oo gebagaba ah waktina waktigu ka dambeeya waa kasii adag yahay wuxuu u baahan yahay soo jeed badan wuxuu u baahan yahay ilaalin badan waxay u baahan tahay waajib badan oo la guto waxay u baahan tahay dulqaad badan intaas oo dhan bay u baahan tahay social mediahuna waa dheeriyo imtixaan ah waagii hore bahalkaasi ma jirinba laakiin iminka wax madaxweyne kasta oo xakamayn karaa dee ma jiro ayadaa isagoo fadhiyo qofku wuxuu raba sheegaya waxaan dardaarmayaa madaxweyne diinta inaad xoojiso sida aada hadalladaaduna ka mid tahay waa kugula dardaarmayna anaguna intaa kursigaa aada fadhida iyo xilka caqligaaga maamulkaaga aqoontaada dadaalkaaga inaad isugu geyso iyo xukuumadda iyo xukunkaada hayso diintaa ilaahay horumarinteeda inta itaalkaaga ah waxaan itaalkaaga ilaahay ku weydiin maayo fataqu llah ma stadactum wey wixii aada qabateen allah ka abaalmariyo wax badanna allah ku waafajiyo oo dambe shacabku madaxweynaha aada u tahay duruuf badan baa ku xeeran faqri badan baa haysta baahi badan baa haysata xagga caafimaadka xagga tacliinta xagga dhaqaalaha xag yow badan buu ka dhibaataysan yahay laakiin wax ka qabadkeedu inta kursiga aada ku fadhido kulli wax kama wada qaban karaysid waxay u baahan tahay wax ka qabad iyo wakti dheer waxay u baahan tahay inaad garab iyo xoog u hesho keligaa waxaad ka qaban kartid maaha laakiin marka la iskaashado shacab iyo xukuumad
ayaa wax badan la qaban karaya. dadka la tashigiisa qaybaha kala duwan bulshada inaad aada ugu dadaashid, ganacsatada, culimada, waxgaradka, dumarka, ragga, dhalinyarada, la tashiga bulshada iyo dhegaysigooda, ciidamada iyo qaybaha kala duwan. shacabkuna waxaan ugu baaqayaa wax alle wixii wanaaga waajib bay ku tahay in isku ka garab taagaan oo kaala shaqeeyaan, maadaama iyagu ku doorteen oo xilka ku dhiibeen, waajib bay ku tahay. inay ku caasiyaanna dembi bay ku tahay. iyagana waxaan leeyahay wax alla wixii wanaagsan samcan wa taacan inay kugu garab galaan, adigana allah kuu fududeya subxaana wa tacaala. dadkaas baahan, dad baan qadayn oon quraacan oo cashada say ku helaan ay adagta, kuwaa buka, aqalada jiifa, cusbitaalada jiifa, miyiga jiifa, waxay dhakhtar ku agaan aan haysan. dadkaas oo dhani xilkooda waa ku saarey, su-aasheeda waxaa lagaa weydiinaya aakhiro ilahay hortii subxaana wa tacaala. waa waxaan u leeyahay ilahay ha kugu asturay xilka iyo mas-uuliyadda, laakiin dadaalka aad samaysid iyo xilka aad dadaashid wax weyn bay ka noqon kartaa berito iyo hawsha caynkaas ah. hawshaas aad baan u dardaarmaya shacabku iyo waktiga la joogo. waktiguna waa adeeg yahay, samirkan kuu dardaarmaya iyo dulqaadka. waa lagu maagayaa, waa lagu caayayaa, qaar baa kugu soo farabaxsanaya, burka la soo cararaya deer markay ku arkaan. dulqaadka iyo maxaan ku idhaahdaa iyo wixii la mid ah waa kuusii dardaarmaya insha allahu tacaala. waxa weeyaan odaynimada iyo waayo aragnimadu dee kula socotaa wax weyn ah aad shacabka fahamsanti. taana waa dardaarmi lahaa madaxweyne, waa iga dardaaran. saa mar dambe isu arki doono ilaahay baa garanaya, oo madaxweyneyaasha sida loogu soo galaaba adag. annagu albaabadan guryahan joogna waa masaajidda waa iska furan yihiin, laakiin madaxda ku aragto waa adagta. kelmaddaa dardaaran iyo dar ilaahay bay iga tahay, markaan saa kuula dardaarmay. ilaahayna waxaan ka baryayaa kulamo kaloo wanaagsan in isugu kaayo keeno. xilkaa aad haysa adiga iyo raggaa kalena ilaahay inuu idinku asturo, horumar adduuniya aakhirana ilaahay idinka siiban alla ku dardaarmaya. sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed. waa mahadsantihin. wixii aan khaldayna raalli ahaada, wixii aan asiibayna alla hagiibay subxaana wa tacaala. madaxweyne dhammaan wasiirada iyo madaxda waa salaaman tihiin. waxaan salaan idinkaga siigaa markaza tawfiiq alislaami ee degan Norway, runtii ah masjidka ugu weyn ay muslimiintu halkaa ku leeyihiin, Soomaalidu ku leeyihiin. waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntii albaabadii leenoo furay iyo khayrkii halkan ka dhacay, oo run ahaantii iyadoo markii ugu horreysay ay tahay Hargeysa aan imaado, haddana runtii waxaan halkaa kala baxay in ay tahay meel runtii uu qofku aad u jeclaado, inuu ku soo laalaabtan runtii u jeclaado. waan ku faraxsanahay albaabada furan iyo khayrkaa markaa leenoo saamaxay. ilaahay subxana wa tacala idinka abaalmariyo, mas-uuliyaddaad haysaanna ilaahay subxana wa tacala garabkiin ha galo. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بروتوكولka kole kuma fiicniyo anugu kuma bandi, laakiin waxaan leeyahay madaxduna waa salaaman tahay, dadweynahana waa salaamaya. intaa waxa loo dhaafaa waxa weeyaan waa uun inaanu idin mahadnaqno waddanka nabadgelyadiisa iyo brograamkaasi aanu wadnay sidii fududayda noogu hirgalay. dowladduna caraaqil lagu keenin, shacabkuna caraaqil lagu keenin, si fudud oo runtii aad u fudud uu u qabsoomay. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa subxaanaه wa tacaala wixii khayr ku jira inuu ina wada waafajiyo, wixii shar ku jirana in ilaahay subxaanaه wa tacaala inaga ilaaliyo. waa ducaynaya. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. intaa kadib mahad ilaahay subxaanaه wa tacaala kadib waxaa sharaf noo ah maanta in mudane madaxweyne aada nagu casuumtay majliskaagii iyo maqarigaagii adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka
iyo dhammaan madaxda halkan ka soo qayb gashay aad baan ugu faraxsannahay runtii alxamdulilah istiqbaalka iyo soo dhoweynta oo runtii maynan hadda nagu bilaabanine diyaaradda lanaga hor yimid aad iyo aad lanoo soo dhoweeyey runtii waxaa lana dareensiiyey annagoon yani madax iyo maamul iyo midna qabanin inaanu wasiiraroo kala nahay ama madax nahay baa lana dareensiiyey meesha sida gaarkaa lanoo soo dhoweeyey oo VVIP da miyaa la yidhaha sidaasaa lanagu soo dhoweeyey alxamdulilah arrintaasina waa arrin aad idinku amarteen weeye allah idinka abaalmariyo waa idinku ducaynay inta meesha aanu fadhinay mu'tamarku uu socday kulankaa diineed uu socday waxa ugu weyn aan isleenahay waa uu ka xasilay oo waa laga helay waxa weeye waa duco liannahu ummad badan baa isu timid qof khayr ku jira ilaah baa og kuweennaa meelaha ka hadhadlaya sheekhda la leeyahay ilaah baa xaalkooda og laakiin dad fara badan oo laga yaabaa inay iska qarsoon yihiin oo dadka ka mid ah ayaa ducadaa meesha lagu ducaynayo aamiin ay odhanayaan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ajiibayaa marka muslimiintu inay kulmaan oo shir yeeshaan ay wada ducaystaan khayr badan baa ku jira nebiga calayhi salaatu wasalaam si gaaruu u tilmaamay ducada jamaaciga ah qofku waa iska ducaysanayaa weliba markuu habeenkii keligiiho ilaahay u baryayo ducadiisu insha allah waa mustajaab laakiin si gaaruu nebigu wuxuu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi maa dacaa qowman waamana bacduhum ila ajaabahum allah jamaaca isuma timaado qaarkoodna ma duceeyaan qaarkoodna aamiin ma dhahaan ilaa ilaahay waa ka ajiiba deesaan la soconnana adduunka iyo aakhiradaba ilaahay gacantiisay ku jiraan cize iyo sharaf ilaahay gacantiisay ku jiraan wax alla waxa khayr ahayn rajaynayno xukuumatan wa shacban ummaddaas meel kasta joog soomaaliya oo dhan meelay joogta iyo khaas ahaan ummaddeennan walaalaheena somalilan xukuumaddooda iyo shacbigooda iyo waxaa la rajaynaya khayr ahayn la sheegayo walaalkeenu ka dhawaajiyey dad badan oo faqri iyo masaakiin iyo marad iyo xanuun iyo intaba ay jiraan dee kan rafcin kara waa allah subxaanaه wa tacaala biyadihi kulu shay marka dariiqada keliya ilaahay wax laga helaana waa in laysu beenbihiyo oo la baryo oo si miskiinnimo ah weliba loogu sheegto ilaahay markuu nooga sheekeynayey zakariya calayhi salaam nebiyadii ambiyada ilaahay ka mid ahaa baryadiisaa ilaahay noo soo siduu wax u baryey baa ilaahay nooga sheekeeyey dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya oo muxuu igu ducaystay muxuu yidhi qaala rabbi inii wahana alcadmu minii ilaahu lafahaygii waa jelceen washtacala ara'su shayban timtaydii waa wada caddaatay wa inii khiftu lmawaaliya min war yani ilaahay uma baahna ilahay waa ogyahay inuu gaboobay oo da' noqday oo lafihiisii jelceen haddana ilaahay buu u sheeganaya wuxuu ilahu intaasoo dhan oo haysata waxaa iiga daran weliba islaantaydiina waa caqiima wax ma dhasho intaasoo dhiboo isu tegey baan haddana ku weydiisanayaa wiil isay waa tii loogu bishaareeyey ilaahay wuxuuna barayaa sida aanu isugu bembahino oona u barino oonu ugu ashtakoonno u sheegan marka kulligeen horta saasaanu isfaraynaa xilkaa iyo madaxtinimada iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinku sharfay inaad ilaahay la hoos gashaan oo baryada ilaahay aada badisaan ilaahay idinku garab galo innagana waa idin ducaynaynaa insha allah mid yar oo waxaan waddanka waxaanu ku aragnay oonu ku faraxsannahay oonu aad iyo aad ilaahay uga mahadinaynaa nabadgelyo waxaan odhan karaa anaguna mujaamalo iga ahayn oon cidna ugu dhowaanaynin oo cid garaadda kugu siinaysay cidna aysan jirin meel ay ka jirta adduunka inay yartahay nabadgelyada halkan taala muddo waxaan u malay 2 sano mise 3 sano ka hor baan qolo reer qadar isa soo raacnay oo niman culimo waaweyn oo dakaatiri ay ku jiraan eraboorka lanaga soo dhoweeyey sheekh ismaaciil iyo aanu ku soconay iyo jamaacadii dacwada si wanaagsan baa lanoo soo dhoweeyey gaari fiican baa lana saaray markii aan xoogay soo soconnay oy arkeen wadooyin iyo maxay ahayd taraafika iyo askar waddadii kala hagaajinaysay iyo markii ay arkeen dhismihii iyo ayay afcarabi ku sheekaysanayaan ninkan wadaana afcarabi wuu yaqaanaa mana oga inuu afcarabiga garanayo iyagu waxay dhahaan subxaan allah hadi bilaad fiiha xukuuma ka jirta waxaanu maqallayba in meeshaasi waxba ka jirine ninkii ismaaciil baa la odhan jiray oo gaariga nagu waday oo
markuu xantoodii maqlay buu wuxuu yidhi sheekh cabdirashiido waxaan doonayaa nimankan inaan suuqa sii mariya ma sii marin karaa ha na mari baane suuqu nagu leexiyey saa waxay u tageen lacagtii kurjada oo iska taaltaal oo weliba goor duhuray ahayd oo dadku kala rawaxeen wiil yar intuu la joogo weliba intuu lugihiisii saartay iska jiifo hurdaba waa maxay waxaan waa lacag baa la yidhi intaa doontaad heli karta haddana markaasuu na leexiyo suuqii dahabka oo ay foodle yar joogto dadkii kale ka rawaxeen waya madaxay qabsadeen wallaahi bay dhaheen amniga meeshan yaal inuusan waddankeena khadar baanu ka nimid oo dowladda ka taagantay waxaa ilaahay baa laga helaa ilaahay baa keenay amnigaa ilaah baa keenay xogay bani aadamku markuu amni iyo barwaaqo iyo uu dareemana doqyaan iyo xogay talaxtag baa yaa ku yimaada kalaa ina alinsaana la yadqى an ra'aahu istaghnaa horta in ilaahay aan ku shukrino in ilaahay subxaana watacaala waxaa ugu muhiimsan waa amni istiqraar kaasaa ilaahayna siiyey waddankeenna aan ku aragnay alxamdu lilah aad iyo aad inaan ilaahay ugu mahadino mahadda ugu weyn een ilaahay subxaanaه wataعala aan ugu mahadinaynana ay noqoto inaanu ku shukrino wa shukruhu طaacatuhu طaacadiisa in aynan keenin arintaas iyo amniga iyo istiqraarka in aanu rabbigeen subxaanaه wataعala aanu ku caasino alxamdu lilah khayrka aanu ka aragnay madaxda intaanu la joognay wasiiradiina soo booqanayay in dadaal xoogle lagu jiro oo aad iyo aad u weyn sidii looga hortegi lahaa wax alla waxa diinta ilaahay ka hor imanaya fasaadka iyo fisqiga iyo fujuurka adduunka meel kasta ku faafay sidii looga hortegi lahaa oo khamriga ay ka mid tahay naga farxiyey wasiirkii arrimaha gudaha xalay noo sheegay in dagaal xoogle lagula jiro mukhadiraadka oo la ogyahay dhibaatada maanta ay tahay marka warkuusan ila sii talax tegin waxaan socodkeenna uu ahaa inaanu idiin mahad celinno soo dhoweynta aad iyo aad u wanaagsan iyo qalbiga furan in loo kala hadhin xukuumatan wa shacban aan loo kala hadhin inaanu idinku mahadino inaanu idin sheegna inaan idin ducayni ilaah idin barinay in sha allahu tacaala ilaahina subxaanaه watacaala horumar iyo barwaaqo iyo bashbash fi dunya aakhirana ilaahay subxaanaه watacaala jannadiisii una geeyo taasaan kusoo gabagabaynaya